بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن شاء الله مقال كيران waxaynu ka hadli doonaa hal qiso oo ku soo xiganaya kitaab aan maalin dhow akhriyay oo magaciisu yahay Ashitaa Rabiicul Mu'min maalimaha kamid ah ayaa nin waxa haleelay jacayl waxa u dhacay jacayl aad u daran kaasi oo ku keenay dulinimo iyo niyad jab aad u badan kadib ninkii jacaylka la yardadna waxa uu fadhiistay isagoo dariiqaas fadhiya ayaa waxa indhihiisii qabatay hurdo isagoo oo bartii jiifa ayuu seexday ninkii isagoo isla bartii hurdo ayaa waxa meeshii soo martay gabadhii uu jeclaa kadib gabadhii waa eegtay iyada oo aad uga murugaysan xaaladda uu ku sugan yahay intaas kadib gabadhii waxa ay qaadatay waraaqada gaarkiisa taallay ninka waxa ayna ku qortay sidan soo socota hooy ninkaagan dhoohanow haddii aad tahay nin taajir ah kac oo maalkaaga raadso haddii aad tahay mid saahid ahna kac oo salaatuleylka tuko oo ilaahaaga caabud haddii aad tahay mid jacayl ku dhacayna naftaada u khajir oo wax isku fal goorma ayaa loo baneeyay qofka caashiqa ee jacayl ku dhacay inay indhihiisu seexdaan hooy ninkaagan cishqiga ama jacaylka sheeganayo kuma arka inuu jacaylku hayo ilaa hadduu ka hayana been baad ka sheegaysaa caashiqa dhabta iyo hurdadiisu maaha ilaa inta uu kafan ka gala mooyaane oo markaas ayay hurdadiisu gaadhaa ninkaagan jacaylka sheeganayo haddii aad jacaylka jaahil ka tahay ka kac meesha maxaa yeelay jacaylka dadkiisii ma tihid oo iska ehel ma tihiine markii ay gabadhii intaas ku qortay waraaqadii ayaa waxa ay dul saartay madaxiisa kadibna iyada oo degdegaysa ayay ka dhaqaaqday goobtii markii uu toosay miskiinkii yaraa ee meesha hurday ayaa waxa uu arkay waraaqadii kadib waraaqadii ayuu soo qaaday markuu akhritaankeegii dhammeeyeyna ayaa waxa uu dareemay murugo aad u badan halkaas ayuuna